السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada daawadayaal halkan waa warbaahinta Chess Media anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal caawa waxa inoogu marti ah Professorkii weynaa Cismaan Ismaaciil Maxamed. Waayay ku soo dhawaad Cismaan bulshadii ku jeclayd ee halkan uga soo gudbin jirtay waxyaabaha kala duwan ayaa caawa aan kugu soo dhaweynaa soo dhawow. Waad mahadsantahay Ismaaciil waa dhawahay. Nimay horta waxaynu Professorka caawa ugu yeernay arrimo siyaasiya iyo waxyaabaha isku qasanay isku horimaadada xagga Puntland haday tahay xagga Soomaaliland haday tahay Soomaalida kale haday tahay su'aalo badan baan wax ka weydiinaynaa subscribe t-shirt waa xaqiina waayahay aan ku horeynaa su'aasha aynu weydiinaynaa waxa weeye Cismaan waxa jiray baryahan dagaal ka socday buuraha Calmiskood ama Puntland aan iraahay muxuu ku dambeeyay dagaalka Ismaaciil aad iyo aad baad mahadsantahay dagaalka Puntland ka socday ee lagu dagaalamayo argagixisada Daesh markii hore waxa loo abaabulay si wanaagsan balse xoogaa dhaliil ba jirta oo markii hore ba xagga dawladda ciidamada Puntland ma aha ciidamo midaysan oo hal meel amar ka wada qaata waa ciidamo beel waliba ay gaarkeeda u hubaysan tahay oo ay beel u fadhiyaan alxamdulillah horta si wacan bay argagixisada la dagaalameen waana jabiyeen balse waxa dib ka taagan yahay midnimo la'aanta ciidamada Puntland iyo daacad darrada madaxweynaha maamulkaas Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo imika ay qaar ka mid ah shacabka reer Puntland u arkaanba isagu inuu yahay mid mashaariic ku qaata argagixisada oo isaga laftarkiisu qayb ka yahayba waaya Cismaan hadii halkaa imika aan adoo hawshaada sii wata waxaan jecel lahay inaad noo sheegto waxa jira ciidamo la yiri maanta buurihii Calmiskood iyo difaacyadii way ka soo baxeen iyagoo si koox uga soo baxay iyo shacab diidanba in ciidankani sii dul deganaado maxaad xog naga sii kartaa halka kulay in kastoo warbaahina kala duwan ay soo daayeen bal qabaa'ilka iyo ciidankii difaaca dalka waxana iskaga hor yimaadeen iyo waxyaabaha ay ciidanku jiida kaga soo baxeen bal u bayaano shacabka marka hore waxa jirta Ismaaciilow beelahan degan gobolka Bari beesha ugu ballaaran waa beelahdo Cali Salabaan iyo Dashiishe beesha madaxweynuhu ka soo jeedo guud ahaan waxa la isku yiraahdaa Maxamuud Salabaan laakiin isagu wuxuu ka sii yahay reerka leedo Cismaan Maxamuud waliba badhul bahante waxay beelahaas tirsanayaan Cali Salabaan iyo Dashiishe oo deegaanka ugu ballaaran ka degan gobolka Bari dawladdu inay iyaga laftarkooda u taqaano argagixiso wax hubaya wax rasaas ma siinin hubiya rasaas ay iskoodu la soo dageen bay ku dagaalamayeen oo argagixisada kula dagaalamayeen dawladdu waxay ka taageertay ma jirto hadaba dawladdu waxay isku dayday hubkii ay la soo dagayeen ay sida beelaysan la soo dagayeen inay ka qaado oo ayagana ku shaambadayso inay argagixisay yihiin maadaama oo deegaanada ugu badan ee ay argagixisada degan tahay ay beesha Cali Salabaan degan tahay waxa loo aanay beesha Cali Salabaan oo dhani inay argagixiso tahay iyadoo oo qofkii ka hor yimaada dawladdu qaabka wax u maamuleysaba lagu dhufanayo shaambada argagixisada sidoo kale uu dan u sheeganayo in Maxamuud Salabaan oo laandheera ah oo u arko reerkan reer yar oo aan tamar caynkaas aan lahayn waayahay ka yar dhaxgal ay adigu hawshaada wata ma waxa la oran karaa deegaanka cidda ka inagu waxaynu maqlay horta Puntland baa ka dagaalanta ciidankii Puntland baa buuraha Calmiskood ka dagaalama argagixisada la dagaalamaana waa Daesh oo magac way leedahay wana cadaan iyo midug ma waxaad leedahay markaa qabaa'ilo kamida qabaa'ilka degan Puntland ayaa ka dagaalama buuraha Calmiskood waa taas way cadahay Puntland ma laha ciidan meel degan oo la yaqaano oo meel kale ka amar qaata ma laha waxa uu hogaamiye kooxoodyo ama hogaamiye beeleedyo hadii la ku roonay dreeska uun sita laakiin meelna laga wada xukumo janan guud wada maamulana ma laha isku gaadiid iyo isku hub maaha rasaastan waliba meesha danu kala yimaada qaab markii hore ay dagaalka u galeen qaab si wacan loo abaabulay boo ha tiknikadooda la midoobay meel baa la isugu keenay markii laakiin buuraa la galay reer waliba gaar buu degay oo taasina waxay muujinaysaa daacad darrada iyo qaabka ay dagaalka dawladdu u maamushay waa sax waxaad noo sheegtaa markaa hadii kulliba ay ciidamadu kooxaysan yihiin kuwa lala dagaalamayana ay koox yihiin nidaam diineed ku dagaalanta waxa weeye ninka hogaamiya waxa weeye Cabdiqaadir Muumin waa nin marjeerteena maxaa lagu diidan yahay hadii kulliba ay ciidanku uu yahay kooxo iyo maxaa sheegayay hogaamiyayaal kala xukuma isna inuu hogaamiye yahay nin marjeerteena maxaa markaa ay loogu midoobay haatan hadii ay kulliba kooxa yihiin ciidan qaran baan u jirin
ما إسماعيل وتسوي كلا دوانتها يكون وحي مثليا كلا بلبل بها هذانه وحي مثليا ما بالك بلان بمثليا لكن كارج حسد هايستا ما مشرتنها هذا معد كلها هذا يسووا قبيلة وكلا بي لما يو وانين وحوي شعب يماتي عد واركب قماضية وان عندنا كواب ترسنين داعش ودوقتها وحي وبدنتها عرب وبدنتها وحكيم وحوي برق دحه marka waa dad dalka ku soo duulay oo dadka doonaya marka inay baad ka qaadaan ninka aad sheegaysa ma jeerteena kuwaas uu hogaaminaya laakiin nin matala maaha dib Puntland iyo qabaylka Puntland midna ma matalo waa hagaag hadaynu halka ku dhaafno buuraha calmiskood inkastoo aynu su'aal yar aan ugu noqonayo waxaan wararka warbaahinada la soo geliyay ciidamadii kala duwanaaya ka tagay harti waqooyi ama sida warsangeliyo kale dhulbaxanta qaybo kamid ah inay si toos ah uga soo baxeen waa la sheegay iyaga oo ka soo horjeeda inta isku qoomameynaya intii ay ka dagaalameen ama dhaawacyadii iyo raggii ku dhintayba maxaad ka maqashay arrintaayada arrintaasi horta dagaalka badankiisa waa lagu guuleystay argagixisyo badan meesha waa lagu dabar jaray iyagoo Mareykanku soo garab siinayo diyaarado badan oo duqeyn adeegsanayay rag badanna waa meesha waa ku dhinteen qaabka dadkii dhaawacyada ahaa ee meesha dhaawacyadu ka soo gaadheen iyo dadkii waxa weey dhintay dawladda Puntland sidaan ila xogaal ku hayno dhaawacyadii way u kala abtirisay khayr badan baa jira oo markaa sheeganaya inaan dhaawacyadoodii sida ay ahayd aan loola dhaqmin iyo sidoo kale inaan wax xuquuq ah askartii ku dhimatay meesha kaga dhimatay aan la siinin ama magdhowba ah askarigu xaq u leeyahay hadduu goob dagaal ku dhinto inuu mushaarkiisa uu qaato familkiisa qaato hadduu ku dhinto hayb doona ka soo jeediyay marka ciidamadii ka tagay meesha leehdo laasaanood iyo kuwii ka tagay area Ceerigaabo ee Warsangeli markii hore aan sida tooska uga diiwaan gashanayn ciidamada Puntland ama ciidan beeleedyada ay markii hore u kala fadhiyaan ee aan u diiwaan gashanayn ciidan military oo Puntland leedahay wax xuquuq u hay meesha ka heleen habeeratay ma jirto taasana keentay inay dib uga soo baxaan waa tahay hadeen halka kaga tagno majeerteeniya ama maamulka Puntland waxaynu u gudbaynaa xaggan iyo ciidankii al-shabaab oo qabsaday masaajidka Cali Guduud sababaha ay ku qabsadeen iyo meelaha goldolooladaas ka timi maxaad war naga siin kartaa horta arrintaas oo dhan waxa loo aaneynaya madaxweynaha imka dalka hogaamiya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ninkaas oo u muuqda baayac mushtari markii uu xilka la wareegay ciidamo badan oo wadamo kala badan oo dalka dibadiisa lagu soo tababaray baa joogay ciidan midaysan oo israacsan oo markaa awood u leeyahay argagixisada la dagaalamo walow aan markaa wax weey isagu ninkii ugu badan la dagaalamay yahay oo wax badan oo markii hore ka taray labadii sano hore oo aad ula dagaalamay oo deegaano badan oo qabsaday haddana meelihii ugu waaweynaa ee markii hore shabaabta laga qabsaday 2 sano ka hor imika in dib loo qabsado waxa sababay laba mid horta taageeradii Mareykanku uu siin jiray Soomaaliya oo guud ahaan bago'day inta bedelkeeda Turkiga ka caawiyo markaa Turkiguna waxaan filayaa diyaaradaha in iyagu maamulaan kuwa Soomaaliya laftirkooda maamula ciidankii infantry-ga ahaa ee dhulka joogayna wuxuu noqday ciidan reer leeyahay oo macawisleyba imka dhulka aad uga dagaalanta macawisleyda laftirkeedina waxa noqotay waxaan la isku halayn karin oo macawisleyda laftirkeedii baa qayb argagixisan tahay marka shalayto waxa la wareegay masaajidka Cali Guduud oo meelaha ugu waaweyn ama meelahii ugu weynaa ee ay dawladdu markii hore ka qabsatay al-shabaab sida la sheegayo waxay imika haystaan qaybo kamid ah afgooye oo masaafo 30 kilomitir u jirta inkastoo aan arrinta xaqadeeda ahayn aynu halkaa u soo yar noqonay waxa jira hub iska daba yimaada oo si public iyo si bareefadaba u soo gala Soomaaliya oo ugu dambeeyeen diyaaradihii qadar lacagtooda bixisay ee Turkigu lahaa iyo hubab kale badan oo China iyo Turkiga meelo kala duwan laga bixiyo hubka iyo ciidamada sida joogtada loo tababaraa xagay ka shaqeeyaan sababtu tahay waxa dhacda in xamar gudaheeda maalin walba la qarxiyo madaxtooyadu sigato xeebta niida la qarxiyo iska daa kuwa dibadda lagu la dagaalamay in gudaha laftigeedii aan si toos ah ugu gamin xitaa maatada iyo shacabku hubka iyo ciidankaasi xagee ayay ku dambeeyaan marka gacanta Soomaaliya ay soo galaan Ismaaciil horta marka hore waxa jirta daacad darro dhinaca madaxda ha ahaadaan saraakiil sare oo ka tirsan dawladda ayaa la shaqeeya argagixisada laftirkeeda sida ka muuqata ama ay xogo badan sheegayaan sidoo kale shacabka Soomaaliya ama shacabka magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa ah qaar iyagu aan wali bislaanin oo aan ka midaysnayn la dagaalanka argagixisada oo aan hadii wax weey qofka shacabka qof kasto shacbi hadii uu soo gudbinayo xogta al-shabaab halka ay marayaan iyo barta ay ku sugan yihiin waa laga guuleysan lahaa
ciidamadii madaxweyne xasan sheekh uu qabyaaladeeyay way kala furfuran yihiin reerba gaar buu fadhiyaa ma jiro ciidan midaysan oo maanta ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya loo oran jiray oo argagixisada si toos u waajihi kara ma jiraan waxa ugu badan dagaalamaa waa macawisley beelaha ka soo horjeeda beelo badan baa markaa iyagu daacadka dagaalka oo isku xoreeyay sida beelaha degan gobolada dhexe ee Soomaaliya galmudug iyo sidoo kale beesha xawaadle oo kale beesha imika madaxweynuhu ka soo jeedo ee abgaal waliba wacaysle deegaanadiisa gaarka ayaa wuxuu noqotay beesha ugu khiyaamada badan ee haddii laba ku roon yahay argagixisada iyagu qaybta ka ah ee aan awood u yeelan waayay deegaanadooda inay ka xoreeyaan nimanka inta badan dhigooda daadinay waayahay marka waxaan isla aragnay in mar walba hub la soo gaarsiiyo dawladaha caalamiga ay soo gaarsiiyaan Soomaaliya hubka iyo ciidamo loo tababaraba ma waxaad leedahay wixii reeraa loo kala leeyahay reeraa hubkii gacanta loo galiyaa ku dagaalama mise waxaad leedahay hubkaasi maanta Soomaaliya uma shaqeeyo oo wuxuu yaalaa halkii uu ka soo degay buu yaalaa mar haddii ay dibadii ama maxaa sheegayay goboladii ay ka dagaalamayaan ciidamo macawisleeya ama ciidamo beeleed oo kala dawladina aanay gaarsiin wax hub iyo taakurayna oo dhulalka laga qabsadayba sabab noqotay mise waxaad leedahay madaxweynuhu ganacsigu ka dhigtay waxaan inuu caalamkana marba baaq u diro marba qolana ku soo dhaweeyo iyaga xarakada laftigooduna inay dagaalamaan isaga ay mashruuc u tahay san hore kugu sheegay horta madaxweynaha imka Soomaaliya ka taliya Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne ganacsada ah waa madaxweynaha xabaalu ka baxsan waayeen waana madaxweyne siyaasadiisu aad hooseyso waana madaxweyne qabyaalaya oo isku hareereeyay raaskiisii maamulkiisu uu ka dhex muuqdo taliyaha sirdoonku waa nin hawiya sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada xoogga odowa waa nin xaweeyeen hawiya maamulka magaalada gobolada dagaaladu ka socdaan labada madaxweyne ka taliya labadaba waa hawiye waa Hirshabelle iyo waa Hirshabelle khaasatan Hirshabelle imka dagaalku aad uga socdaa waa ninka haysta waxa weeye waa nin hawiya sidoo kale Cali Jeytani ka leeyahay isagu badweyne gaar xukuumadda waa nin hawiya dagaalka waxa ku jira waa hawiye laakiin meesha waxa jirta daacad darro dhinaca madaxweynaha oo aanu daacad ka ahayn dagaalkan mashruucan iyo waxaan uu ku dheereysanayo waa nin caalamka waxa weeye indhaha caalamka inta badan dreeskan uu xidhanayo waxaan ku baadha laakiin aan dagaalku daacad ka ahayn sidoo kale waxa jirta saraakiil badan oo sida la sheegay hubka u gudbiyay al-shabaab oo hubkan soo degaya bar ka midna waxa qaata beesha wacaysle oo ka soo jeeda madaxweynuhu qaar ka midna waxa dib looga iibiyaa argagixisada dib looga iibiyaa waayo argagixisada cunaqabatayn baa la saari lahaa maadaama ay go'doonsan yihiin oo wax huba iyo saadba waa laga xidhi lahaa hadii dagaalka daacad laga yahay وتايلكا waxaan ku soo gabagabeynaa waraysigii caawa aynu ka qaadanay Cismaan Ismaaciil Maxamed tan iyo kulantideena dambe waxaan leeyahay waa anigu Ismaaciil Xirsi Cigaal iyo Cismaan Ismaaciil Maxamed dhamaantiin waan salaameynaa barnaamijka shaqada dalka nala soo gaadhino wad ku mahadsantahay